dhaqaalaha adduunyada ayaa sanadahan dambe mid aan fadhiyin waxaana xidhmo ama shaqooyinkoodii gaabis ku yimaadeen qaar ka mid ah warshadaha adduunyada siiba kuwa baabuurta soo saara. sanadkan 2025 waxaa la saadaalinayaa in mushkilad soo food saaraan qaar ka mid ah warshadaha waaweyn ee ku yaala qaaradda Yurub qaarkood. warshadaha dhibaatooyinka dhaqaale yar soo food saareen waxaa ka mid ah warshadaha baabuurta soo saara ee dalka Jarmalka, kuwaas oo durtaba sameeyay shaqaale dhimis, halka la filayo in xarumo kale oo ay soo xidhmaan dhaqaale xumo dartii. sidoo kale waxaa tartan weyn kula jira warshadaha baabuurta ee qaaradda Yurub dalka China, kaas oo adduunyada meel kasta gaarsiiyay wax soo saar jaban, inkasta oo lagu duro inuu soo saaro alaabo aan tayo ahaan wanaagsaneyn. dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka soo saara gawaadhida ugu qaalisan adduunyada ayaa dhibaatooyin dhaqaale xumo saameeyay gawaadhida dalka Jarmalka. warshadaha ugu waaweyn ee baabuurta Jarmalka soo saaray adduunyada laga yaqaanona waxaa ka mid ah shirkadda BMW. dalka Jarmalka ayaa sanadkii adduunyada ka iibiya qiyaas ahaan 5 milyan oo gaari, taas oo qayb weyn ka ah dhaqaalaha dalka Jarmalka. warshadaha baabuurta Jarmalku waxay bilaabmeen qarnigii 20aad horaantiisii, waana hormuudka baabuurta ku shaqeysa batroolka ee adduunyada. haddii aan sheegnay in Jarmalku yahay horyaalka baabuurta, hadda waxaa jirta dhaqaale xumo ka jirta adduunyada iyo dalalka Yurub qaarkood. dalka Jarmalka ayaa qorsheynaya inuu isaguna dib u habeyn ku sameeyo warshadaha dalkiisa. hase yeeshee sidaas la mid ah dalalka qaaradda Yurub iyo Mareykanka ayaa iyaguna qorsheynaya inaanay soo iibsan baabuur ay ka soo iibsadeen dalal kale, taa beddelkeedana ay dhaqaale geliyaan warshadaha baabuurta soo saara ee dalalkooda, taasoo carqalad ku ah wax soo saarka Jarmalka oo sanado badan adduunyada ka ahaa mid caan ah. sidoo kale adduunka waxaa la qorsheynayaa inuu u guuro baabuurta ku shaqeysa korontada ama tamaraha kale si loo yareeyo wasakhowga hawada. dalka Jarmalka waxaa ku yaala warshadaha ugu waaweyn ee soo saara baabuurta, hase yeeshee weli waxaa dhibaato ka haysataa soo saarista baabuurta ku shaqeysa tamaraha, kuwaas oo adduunyadu imika u guurayso. dhammaan dalalka Yurub iyo Mareykanka waxay cabsi ka qabaan xawliga warshadaha soo saara baabuurta ee dalka China, kuwaas oo iyagoo horeba u soo saaray baabuur ku shaqeysa korontada. waxaana la filayaa in warshadaha baabuurta soo saara ee adduunyada uu sanadahan sii labalaabmo iyada oo loo guurayo baabuur aan ku shaqeynin shidaal.